بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وبلغ السعداء من أمته على نهجه القويم وضل عنها المبدلون. وبعد walaalayaal waxaan soo gaaray su'aalihii nala soo weydiin jiray bulshada qaybaheeda kala duwan soo weydiinayeen. waxaan soo gaartay su'aasha saddexaad, waxay isleedahay maxay tahay waxyaabaha looga hortagi karo sixirka, isha iyo xaasidka. waa su'aasha saddexaad oo na soo gaartay. arrintaasi waxay jawaab u tahay bismillaahi raxmaani raxiim. marka arrintaasi waxaa loo baahan yahay isha iyo xasadka iyo sixirka intaba maxaa looga hortagi karaa. waxaa looga hortagi karaa aayadan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay fi suurati yunus oo in badan tilmaamayso oo ah فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبدله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. marka aayadaas ayaa waxaa ku celinaysaa 17 jeer ayaad ku celinaysaa. marka arrintaas iyada ah waxay ka hortagaysaa isha iyo sixirka ayay ka hortagaysaa. midda oo isha ah waxaa loo akhrisanayaa آيدنا 16 جار آية عن دهيسه وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وأن لدمينوا بأبصارهم لو سمعوا أي الله آخر سنة مدى إيشا مدى السحر كأه نوان صوشيغني مدى حسد كأه في سورة يونس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. تضبط من جرايك آخر نساء marka ishana waad ka badbaadaysaa, sixirka waad ka badbaadaysaa, xasadkana waad ka badbaadaysaa. wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.